السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا قلنا لايف كي جوهري البيج كان كأركي دونتي حساته مرنا بنقولنا إن شاء الله تعالى لايف كي جوتنبي وعن كده دالس دونا سيت شو بتاع إن أنا صار بيجوا عشرة لايف سقف ولا بقى وقت جا يمشي وشوفه وقطعه سيدو كلا حسايوس كلي هي مركوح ولي هي واحد لايف إدتكو وتشكي سنين مقعيو وجوليد إبراهيم محمود waxaan ahay macallin jaamacadeed sidoo kale koorsooyin online ayaan ku bixiyaa waxa weeye platformkan Facebook hadda waxaad daawanaysaa muuqaal aan kaga warrami doono amaba aan u bixiyay waa course aan soo koobayay u hadal sidii hogaamiye waxaan kugu bari doonaa xirfadaha muhiimka ah ee ay tahay in qof kasta oo jecel inuu hogaamiye noqdo in uu xirfadaas u lahaado xirfada ay tahay si kala hadana lugno wax xirfada uu qof waliba ku qasban yahay inuu barto si uu nolosha ugu guuleysto waxaan ku bari doonaa tiraba 10 arrimood oo muhiim ah waxaan ku bari doonaa 8 qodob oo hadalkaaga nuxur u yeelaya hadalkaaga xiisa u yeelaya aad iyo aad bay farxad igu tahay waxaan jecelahay inta aynaan bilaabin nuxurkana toos aynaan wada galin in aan hubiyo codkayga hadii la maqlayo miijiraan codkayga hadii wax cilad ay jirto xag hoosadii u soo qori doontaan comments-ka isla sidoo kale waxa aad iyo aad xiise weyn igu ah hadii aad live ku daawanaysid ama hadii aad broadcast hadhow marka live-ka u dhamaado aad daawanaysid inaad noo soo qorto meesha aad nagala socotid wahalkee magaaladee ayaad naga daawanaysaa aan toos u galo course-kan isaga ah ee aan soo koobay ee aan u bixiyay Facebook waxaan jeedaa u hadal sidii hogaamiye haddii wax cilad ay jiraan waad soo dhigi doontaa halkan haddii Ilaahay yiraahdo aan toos marka aan u bilowdo course-kan isaga ah waa kow maxaa loola jeedaa marka aynu leenahay u hadal sidii hogaamiye maxaa arinta iyada ah amaba fagaar ka hadal baa la yiraahdaa Soomaali af Ingiriisi waxa loo yaqaanaa public speaking bal arinta iyada ah maxaa taariifkeeda amaba definition-keeda uu yahay marka ugu horeysa fagaar ka hadal waxa loo yaqaanaa waa xirfada uu qofku waxa weeye uu sameeyo marka uu doonayo in uu ra'yigiisa uu dadka qanciyo amaba marka uu doonayo inuu macluumaad iyo xog u bixiyo amaba marka uu doonayo in waxa weeye khudbad iyo hadal xiiso leh inuu soo jeediyo taas ayaa loo yaqaanaa fagaar ka hadal fagaar ka hadal marka aan leenahay soo hoos gali mayso marka asxaabtaada aad la hadlaysid amaba marka aad la hadlaysid adiga iyo qof ku ag fadhiyo kale marka isaga cilmiga waxba ku tari maayo laakiin marka aad dad hor joogtid ee hadal laga dhageysanayo marka isaga ay xirfadan iyo aqoontan iyada ay wax ku taraysaa hadii Ilaahay yiraahdo waxa muhiim ah in dadka qaar baa iska yiraahdo marka qaar macna badan iyo xiisasa u sii badan male waxa loo yaqaano waxa way fagaar ka hadal laakiin arintaas waxba kama jiraan waxaad ogaataa in diinta islaamka ee 2 bilyan iyo saa'id qof hadda ay aaminsan yihiin wixii ugu horeeyay rasuulku uu sameeyay waxa ahayd kelmad uu ka jeediyay buurta Safa uu dadkii reer Quraysh u jeediyay taasoo si fiican loo dhageystay islaamku wuxuu ku bilaabmay erey si fiican loo jeediyay adkanood u baahantay waxaan ognahay taariikhda Mareykanka markay dib loogu yar noqdo ma garanayo waqtigu ahaa 1960-aadkii meelaha ay ahayd 70-aadkii laba madaxweyne ayaa tartamaya madaxweyne waa nin caafimaad qaba oo wanaagsan inuu Nixon ahaa maleynaya iyo madaxweyne kale oo la tartamayo marka midna waa murashax midna waa madaxweyne dhabta ah ee waxa weeye rabay inuu ku ceshado xilka dabeedna waxa dhacday madaxweynihii asalka ahaa xilka rabay inuu ku ceshado muddo kordhintii 4 sano soo socda uu qaato ayaa waa uu xanuunsaday dabeedna xanuunkii dabcan qofku markuu xanuunsado si fiican uma hadli karo xanuunkiisii waa waxa ogaaday dadyowgii siyaasiyiinta ay ku dhawaan dabeedna waxay ku dhahdeen mudane madaxweyne maanta khudbad bad leedahay tartan bad la galaysaa oo waxa ay ololihii bay maanta kii ugu dambeeyay baynu galaynaa waxaanu ka codsanaa maanta haddaad xanuunsanayso marka dood baa la galay doodda aad ninka la leedahay kula tartamay mucaaridka dib u dhig waayo saani ma hadli kartid dabeedna kamuu yeelin wuxuu dhahay anigu xanuunsanay ayaan galaya dabeedna qof weyn oo xanuunsanay waad garanaysaa sidoo uu hadlayo waxa la sheegaa maalinta iyada ah iyo doodda iyada ah ninka madaxweynaha laga guuleystay waxa laga guuleystay wax kale ma aha hadal ayaa laga guuleystay marka leen fagaar ka hadalku waa xirfad muhiim ah oo wax weyn buu qofku ku qabsan karaa noloshaada maalinlaha bay ku taraysaa isla sidoo kale mustaqbalka weynna waxbay ku taraysaa biidni Ilaahay tacaala
waayahay aan kasii socdo waxaan filayaa ilaa hadda wax cillad ah ma arkaayo waay farxad bay xirfadan iyada ayaa u baahan intaanan u guulin hababka arrintan loo sameeyo waxa u baahan culimada waxaad arki kartaa khudbadaha salaada jumcaha iyo muxaadaraadka markaad dhegeysanaysid sheekh markay dadku dhegeysanayeen sidii isoo jeedaan aad yaabaysid iyo mid markuu saa fuulo mikrofoonka dadku wada seexanayaan marka xirfadani waa xirfad culimadu dadka ugu waaweyn ee ugu muhiimsan ay tahay xirfadan waxa u baahan siyaasiyiinta waxaad arki kartaa nin siyaasi ah oo warkiisa waxa weeye la xiiseeyay markuu hadlaayo iyo mid kale oo aan cidi inuu hadlayay in kaleba aanay kala ogeyn taasina wax dhacay inta badan waxaa u baahan dadyoga hogaamiyaasha ama hogaamiye ha noqdo hogaamiye ganacsiyeed ama siyaasi ha noqdo ama mid bulshada wax ka bedelaya ha noqdo wuxuu doonay hogaamiyahaasi isaguna xirfadda iyada aad iyo aad buu ugu baahan yahay waxaa u baahan dadyoga shaqadoonka haddii aad tahay qof shaqadoon ah haddii hadalkaagu iska tabaclaynayo haddii hadalkaagu aanu xiso badan aanu lahayn waxaa suurtagala cabdiga kale ee kula tartamayo amaba haddii aad gabartay cibaadada kale kula tartamaysa in arrintaa iyada ah ay kaa waxa weye lagaaga badiyaa suurtagala markaa ku dadaal in xirfadan iyada haddaad shaqadoon tahay aad iska hagaajiso waxaa u baahan macallimiinta macallinba waxaad arkaysa markuu galaaska soo galo ardayda wada gamaysa mid kalena waxaad moodaa in ardaydu xiisada siday ula engage garaynayaan ama ay ula gelayaan in waxaad moodaa inay maadada ay horeba u fahamsanaayeen marka halkaa lagu kala tago arrintaasi ayaa ay ka mid tahay waxaa muhiim ah inay ogaadaan dadyoga ardayda ah macallin baan ahay macallin jaamacadeed baan ahay dugsiyo hoose oo dhan waan soo maray waxyaalaha lagu kala baxo ka mid ah maalinta la idhaahdo ardayga waxa la soo jeediyo ayaa midna uu kurbanayaa oo uu baqanayaa waxaan garanaya qaar xataa warqadda ay soo diyaariyaan jaamacadaha hadda arday jaamiciya ayaa ka dhacda markaasa loo soo qabtaa qaar baa aan ogahay oon xasuustaa dhici gaadhi xiisada dhexdeeda oo asxaabtoodu ay barbarkiisa ay istaagnaayeen marka mar walba ardayduna aad bay u baahantay xataa jaamacadda galayo markaan masterka ku jiray aan dhiganayo waxyaalaha waxaa ka mid ah ardayda qaar lagu xasuusto isagoo nin weyna ayaanu waxa weeye ayaanu macno badan aanu ka haysan arrintan iyada markaasuu kurbanayo gariiraya halkaa markaynu marayno si lifekani arday badan iyo axbaab iyo asxaab badan u gaadho fadlan like saar ama wow engagement samee waayo mar wala like ama aynu saarno faa'iido kale aanu ka heli maayo laakiin dad badan bay gaadhaysaa casharada iyada noocan oo kale ah ugu dambeyn odayaasha madax dhaqameedka ahi oo u baahan xirfadan iyada haddaynu soo koobno si kale oo dhigno dhammaan cid kasta xirfadan iyada ah way u baahan tahay waxaad doogtid noqo inuu haddaad mustaqbal wanaagsan oo bright ah oo iftiimayaad jeceshay inaad gaadho waxaa muhiima in xirfadan iyada aad wax ka taqaanay haatana imika aan u gudbo markaa tiraba waxa weeye 8 qodob oo xiise u sameynaya hadalkaaga marka aad sameynaysid biidni illaahi tacaala waayahay marka la yima saddexaad aan ka celiyo si videogan dad badan u gaadho fadlan isku day in aad ka bixisid engagement ama like saar amaba smile saar amaba care saar amaba love saar isla sidoo kale isku day inaad share garayso dad badan ay la wadaagaan waayo waxaan jecelahay in maadaama casharkii u baxayo in dad badan ay gaadhaan sharaf bay tahay in halkan iyaga ah in asxaab ku noqono oo aad igala daawanaysid oo igala socotid aan haatan iyo imika aan ku gudbiyo 8 qodob ee lagu kala tegay marka la hadlayo qodobka ugu horeeya waxa uu yahay sida tan diyaarsa hadalkaaga marka aynu leenahay fagaara ka hadal marka aynu leenahay xirfadda public speaking-ka marka aynu rabno inaad sidii hogaamiye aad u hadasheen waxa aad ku hadlaysaa ha ahaadaan wax diyaarsan khudbad baad galaysaa khudbadaas waxaa muhiim ah ood ku qasban tahay in aad sii diyaarsato laba waxa muhiim ah waa isla diyaarsada ayaan ku jira haddii aad waxa weeye aad soo gudbinaysid class-kaaga dhexdiisa waxa lagu soo diray inaad si fiican aad soo akhrido isku day inaad soo qaybto waxaanaad ku hadlayso haddii aanad soo qaybin si fiican u diyaarso habka ugu wanaagsan ee loo diyaarsado waxaa ka mid ah in warqado yaro kooban aad ku diyaarsato dabeedna warqadii aad rogto markay taasi kaa dhamaato haddana ta kale ay markay kaa dhamaato aad rogato waxaa mamnuuc ah markaad kuleeyahay soo diyaarso waxaad ku hadli doontid inaad warqad weyn oo A4 intaad soo qaadato inaad tiraahdo waxbaan jeedinaya dabeedna aad sor dhigto wejigaaga lama arkayo ama baad dhulka dhigto dadka aanad eegin isku day arrintaayda si aad uga baxdo in aad la wadaagto waxaan jira inaad kusoo diyaarsato warqadaada
warqado yar oo kooban warqadaha yar ee kooban waxaad ku qori kartaa dhibcaha inta u horeysa yani main pointska dhibcaha ugu waaweyn baad ku qori kartaa dabadeedna markaad dhibicda aad aragtid ama qodobkaas waad xasuusanaysaa ilaa hore soo diyaarsatay dabadeedna waad hadlaysaa si fiican baad u hadlaysaa iska ilaali markaan ku leeyahay soo diyaarso in hadalku uu noqdo mid warqad ku qoran sidoo kale isku day in wixii ugu yaraan 2 jeer ama 3 jeer ama 4 jeer aad soo akhrido way hadalkaaga waxa ceeb weyn ku ah iyo dhaleecayn iyo waxa uu liita in hadalkaaga baad ilowdo inaad waxaad ku hadasho baad ilowdo waxyaalaha aadka loogu xusuuso waxa kamid ah qofba hadlaya dadna xoranaya qodobkan islaha ka hadal waan ilaabay marka waxaad ku dadaashaa in waxaad ku diyaarsanaadaan si yar oo fududna ay diyaarsanaadaan qodobkaasi waa qodobka koobaad elbu kala tagay weey qodobka labaad waxa uu yahay sidatan qodobka labaad waxa uu sheegayaa yaad la hadlaysaa dadka audience-kaaga ah ama jamhuurka aad la hadlaysay cidda fariinteeda aad gaarsiinaysa waayo haddii dadka aad fariinteeda aad gaarsiinaysa ay yihiin carruur daweynad sida ciyaalka aad ula hadashaa oo aad ciyaal iska dhigtaa oo aad waxa weeye sheekooyinka ugu badisaa oo aad ka qoslisaa hadalkaagii u gudbaya markaa haddaad odayaal la hadlaysidna dee luuqadii odayaasha iyo tabti waaweyn iyo tabti dadka waaweyn kula hadlayay iyo gabayo iyo xikmado waaweyn waa inaad kula hadashaa haddaad dhalinyar la hadlaysid waa inaad afka dhalinyarta aad kula hadashaa haddii arday ay yihiin dadka ku hor fadhiya hadalka u jeedinaysa waa in hadal ayagu ku fahmayaan aad kula hadashaa iska ilaali inaad ku hadasho hadal aan cidina fahmayn dadka kaa soo horjeedaana ay odhanayaan talo ninkan muxuu ka hadlaya marka ciddaad la hadlaysa inaad ogaataa hadalkaaga qurux bay u yeelaysaa haddii carruur yihiin hadalkaaga waa inu soo gaabtaa haddii dad waaweyn yihiin waa inu hadalkaagu faahfaahsanaada hadday dhalinyaro yihiin hadalka degdeg u sheeg qodobadaadana u gal adoo aan in badan soo aaran marka ogow cidda aad la hadlaysid qodobka saddexaad baan hadda ku xigsiinaa waa qodobka ugu muhiimsan ee ay tahay in qof waliba uu ogaado hadalkuna halka uu ka bilaabo markii hore waxaan ku diyaarsan hadalkaaga waa qodobkii koobaad marka inaad hadalkaaga diyaarsataa waxa weeye hadda waxay kaa fudaydinaysaa inuu hadalkii kugu istaagtaago toos baad u soconaysaa waxaan xasuustaa maalmaha ka mid a masaajid baan ku jiraa anigii ciyaalkaygi dabeedna anagu masaajid ku jirna ayaa imaamkiiba iman waayay dabeedna waxay igu qasabtay in aanu aan galo marka aan waan iskiijinaya waxba ima diyaarsana waxaan ogahay in xataa haddii aan hadlo in hadalkaygu uu noqonay midaan saameyn badan lahayn ilaa waxba maan soo diyaarsanay dabeedna dadkii masaajidka saa isku eegay dabeedna dadkiiba markaan arkay inay soo wada eegayaan deydhaha laygu gubaayo inu aryahay war isku day inaad kacdo waan kacay waan fuulay sidaadan u fuulay mimbarkii khudbadda ayuu halkaa imaamkii ka soo galay alxamdulilah ilaahay baa rimi hagaajiyey waan iska soo degay halkii buu sheekha hadalkiisa kasii waday isagoo jeclaa weliba inaan anigu khudbadda aan galo laakiin waxaanan u galayn waxba imay diyaarsanayn marka qodobka koowaad ee isku muhiimka ah waa inaad diyaarsato hadalkaaga qodobka labaadna waa inaad cidda aad la hadlaysid aad ogtahay haddii aad arday la hadlaysid haddii dad caamo aad la hadlaysid haddii aad yar la hadlaysid haddii dumar aad la hadlaysid mar walba hadalkaaga waa inuu ku ahaadaa mid ku wajahan dadka aad la hadlaysid halkaa intaan marayno qodobka saddexaad baan u gelaya laakiin waxaa sameynaya tallaabo oo muhiima halkaa tallaabo waxa weeye inaan sheer gareeyo waxa weeye muuqaalkan waxaan jecelahay intaan hawsha aan wado inaad waxa weeye haddii wax su-aala kolley labada qodob aan soo aragnay aad haysid iga soo weydii haddii aad fahanteen ii soo sheeg oon fahmay si fiican dhe haddii aad jeceshahay inaad wax ku kordhisana commentka soo dhex dhig haddii uu ilahay idhaahdo isla sidoo kale haddii ay jiraan wax aad kala kulantay waxa weeye public speaking-ka ama fagaara ka hadalka iyada lafteeda inaad la wadaagto macno weyn bay samaynaysaa si uu noqdo wada sheekaysi laba dhan ka socda waayahay waxaynu maraynaa qodobkii misaal waa qodobkii saddexaad qodobka saddexaad marka waxaynu ku sheegaynaa waxaa loo yaqaano waaxaha hadalka hadalku waxa ayuu leeyahay waaxa inaad ila fahmaysan filayo waaxdu waxa weeye waa qaybaha waa segments ama waa sections ama waa aqsaam
وقيبت هذا الكوكوبي هذا الكساس تحبك كوكوبي أما خطبة هالنقطة أما محاضرة هالنقطة أما 10 هالنقطة أما بوهنا قفاتين يسها النقطة أما بدير كلين أنتم بحين يسها النقطة هذا الكاجو إنه صدق قيبات كوكوبنا هذا قيبت كوكوبات وقيبت هردعة هذا الكاجو إنه هردع يشان هردعة وحقول في عن إن تسميسيد إن أظهر عدة تحت كادو شيء كما أي تهين كل جي سنين بس لو صدق كله هردعة وحلا جو رما وح aad waxa way ka hadlaysid waxaan jeclaystay inaan arrintaay kala hadlo hordhaca markaynu ku jirno waxa muhiim ah inaad dadka aad u sheegto muhiimadda waxaanad ka hadlaysaa ay leedahay si dadku marka ay ku dhageysanayaan ama ba hadalkaaga si fiican uga faa'iidaan si waxa weeye ay hadalku ugu dhaadhacaan marka hordhaca intaaba loo sameeyaa adigu iska waran maxaad ka sheekaynaysaa muhiimadda intee leeg waxaan leeyahay dabadna dhagihii ku diyaara ee nuxurkii hadalka galaysaa marka arrinka labaadna waa nuxurka hadalka hadalku waa wixii ay ahayd inaad gudbiso oo dadka aad uga waranto marka dadka markaad uga waramayso tusaale ahaan oo kale fadliga salaada oo kale oo amaba aad doonayso inaad kalaaskaaga 10 aad uga waranto waa inta wixii aad si fiican aad u soo diyaarsatay waa inagii hore soo dhanay diyaarso hadalka iyo waxa aad soo jeedinaysid marka nuxurku waa qaybta dhexe ugu dambeyn nuxurkii marka aad ka warantid nuxurku wuxuu noqon karaa xog wuxuu noqon karaa sheeko wuxuu noqon karaa warbixin wuxuu noqon karaa cilmi baadhis la soo helay wuxuu noqon karaa 10 aad soo koobtay wuxuu noqon karaa wuxuu doonaha noqdo waa inaad nuxurkiisa ku gudbisaa nuxurkii marka aad ka baxdana waxa jira qodobka saddexaad ee naqtinka ama gunaanadka hadalka markaynu gunaanadayna hadalka wixii aynu soo sheegnay oo dhan ayaynu horta degdeg aynu muraajaco ugu samaynayna waxaasan ka soo hadlay kaana waan ka hadlay muraajaco degdeg aad samaysay isla sidoo kale dadka waxa aad ka doonaysana waad sheegaysaa haddii aad doonayso marka ay salaada ay ku saabsanayd oo kale waxa aad dadka aad u sheegaysaa wixii faa'iidadii salaada dabadna waxaad leedahay walaalayaal salaadu haddii sidaas ay tahay aynu tukanno amaba waxaad odhanaysaa qof kastoo maanta laga bilaabo salaadaada ilaasho bimacnaa wixii aad ka hadlayso wuxuu doonaba ha noqdee waxa aad soo gunaanadaysa hadalkii dadkiiba dhiirigelintii aad siinaysaa marka labada arrinba waa la sameeyaa gunaanadka wixii horena soo muraajace aad ka hadashay isla sidoo kale wixii dadka aad u sheegaysayd ku dhiirigelinaysayna waa inaad u sheegto weeye intaasina waa intaa marka hadalkaagu waa inuu sidan u qaybsanaa tusaale markaa bixinaya imika tusaale salaadan ka sheekeynaya magacaygu waa Guuleed Ibraahim Maxamuud waxaan ahay sheekha magaalada tusaale ahaan ka soo qaad waxaan ahay sheekha magaalada ama tusaale ahaan kale waxaan ahay culimo idinka safar idinku soo gaadhay waa hordhici kooban waxaan jeclaystay inaan walaalayaal idinka warramo fadliga ay salaadu leedahay baan jeclaystay inaan idinka warramo fadliga salaadu ay leedahay waa wax weyn hadalkii ma sii wadaya hadalkii markaan dhamaysto salaadu waa waxyaalaha dadka qofka dambiga ka tirtiraya salaadu waa waxyaalaha dadka jannada ay ku galaan salaadu waxa laga faa'iidaa muslimiinta ayaa isku xidhmaya salaadu qofka way daahirisaa salaadu qofka xumaanta way ka ilaalisaa ee ka dawlin xurkiba ku dhex jira haatan yaan odhan haddaba walaalayaal gunaanadkii baan kale haddaba walaalayaal hadday salaadu waxaasoo fadli ay leedahay jannada lagu galaayo dambiga ay kaa daahirinayso xumaanta ay kaa ilaalinayso waxa ay tahay inuu qof kastaba uu salaada u tukado marka hadalkayga hordhacbaan u sameeyey nuxurkiina waan ka warramay gunaanadkiina waan kusoo gabagabay marka intaas waa in hadalkaaga uu ka koobnaada waxyaalaha aad ka ilaalinaysa waxaa ka mid hordhac marka lagu jiro ee aadka caloosha waxa weeye dadka ay u xanuunayso markay ku dhageysanayaan inaad tiraahdo walaalayaal wax badan oo la sheegaa ma hadhin haddaad sidaa tiraahdo dadkii baad iska didiyay waxba sheegi maysid iska ilaali hadallada noocaas oo kale amaba kolley waqtigu waa iska gabagabo ee walaalayaal waxaan odhan lahaa haddaad waxaa ku bilowdo qofkii dhegihii furaysanaya adigii baa dhegihii xidhanaya oo qof kale hay dhegeysanin marka qofka ku dadaala inaad soo jiidato oo inaad haddii aad iska ilaali inaad tiraahdo walaalayaal waxa aan tusaalahaan oo kale wax badan oo idin sheegay ma jiro dadka culimadii baa joogtay jooji waxa marka hordhacaaga si toos oo kale waayahay qodobka afraad isku dheelitiranka hadalka waa inaad mar walba aad ku dadaashay inuu hadalku isku dheelitirnaado hadalkaagu inuu isku dheelitirnaado waxaa ka mid noqonaya in toonka ma garanay kelmadda Soomaali la yiraahdo toonku waa habka hadalku u dhacay iminka haddii tusaalahaan kale naartan kaaga digayo kale walaalayaal warnaabtu waa sidaa iyo sidaa naartu waxa ay saas weeye hadalkaygu way naxdin u lahaadaa waa inaad gelintaa geerida qof walba geeri baa sugaysa god baa lagu gelin doonaa keligaa baad noqon doontaa
camalkaagi waxaan hayna wax ku taraya ma jirto marka toonkii hadalkaygu murugu noqonaya jannada doonayna ku jeclaysiyo walaalayaal war jannada waxa yaala ma ogtiin jannada waxa yaala wax kastoo naftu ay jeceshahay waxa yaala wax kastoo qurux badan waxa yaala wax kastoo wanaagsan waxaasoo dhanba waxa ka weyn raaliyaha shay ilaahay hadalkii wuxuu yeeshaa tanoo jawi farxadeed marka toonkaagu waa inuu kala duwanaadaan marka hadal aad wadid toonka ama habkaad u hadlaysa yana isku wada mid noqon dadka qaar baad arkaysaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام بلو إلا لما اسكسيبه وضيا marka waxyaalaha hadalka kharibay kamid tahay hadalkaagu waa inuu kala yeeshaa xagga toonka waa inuu kala duwanaada mar farxad qofka gali mar muruga gali mar kanixi mar ka qosli hadalkaagu saa kala duwanaada speedka hadalka laftiisa waa inaad kala dudaa oo isku dheeli tirnaada mar waa inaad degdegtaa asxaabay waxaan idinka warramayaa arrin aad iyo aad muhiim ah waxaan idin sheegay in xirfadda ah fagaarka hadalku ay qof kastaba ay muhiim u tahay hadalkaygu waa degdeg waxay muhiim u tahay noloshaada ku saacidaysaa waxbarasho noloshaada shaqo ay ku saacidaysaa xataa haddii aad ganacsi sameynaysid way ku saacidaysaa dayda imka degdegii marna waa dedejiyey marna hayar baan ka dhigay codka weelad marka hore u dalacdaa asxaabay waxaan jecelahay inaan idila wadaaga arrin muhiim ah arrinka muhiimka ah waxa uu yahay waar hoy pageka like saar marka hadalkii kor baan u dalacay haddana hoos baan usoo yardhigaya waxaad like u saaraysaa wax kale maaha adiga ayaa ka faa'iidaya asxaabtaadana la wadaag marka hadalka waa inuu saddex ka isku dheeli tirnaada u ahaada hadalkaagu dabeecadda hadalkaaga farxadda iyo murugada iyo qosolka iyo kaftanku waa in isku dheeli tirnaadaan hab kaliya ha wadin speedka iyo degdegu waa inuu marna speed u yeesho hadalkaagu marna aayar u ahaadaa mid kaliyaan lagu baranin codkaagu marna waa inuu sarreeya marna waa inuu hooseeya oo sidaa u ciyaara meel kaliyaano codkaagu marnaba aanu taagan oo qodobka afraad waxay hadhay afar qodob oo kaliya yaryar hadalkaaga hakad geli oo qodobka shanaad yani hadalka markaad wutid hawadinuun mar jeer aamustaa aamuskaad aamustay qofkii hurtay xataa soo booday xoranaya tal maxaa loo aamusay tal ma su-aal baa lagu weydiiyey tal maadaa lagula yaaban yahay talo maxaa la soo wadaa hadalkaaga hakad geli mar walo hadal hakad aad geliso qurux buu hadalka yeelanaya sida qoraalka hakadku uu qurux ugu sameeyo hadalkaaguna hakad ha yeesho hawadin si joogta ah qodobka lixaad oo isaguna muhiimka maadaama imka aynu kasoo gudubnay hadalkii iyo hababkii hadalka iyo waxyaalaha aad sameynaysay imika baljirka iyo waxyaalaha looga baahan yahay gudbo taagnida qofka waa qodobka lixaad waa inaad mar walba aad ku dadaashay inaad taagnaato imika waan istaagi lahaa aniga laftayda si aan kugu qanciyo muhiimadda arrintaasu leedahay laakiin qalabkani suurtagelinay waa inuu qofku mar walba uu taagnaado ogow taagnidu way ka xiisa badan tahay fadhiguna wuxuu kasii xiisa badaya jiifka haddii uu jiro qof jiif ku khudbadaya markaa mar walba isku day inaad taagnaato taagnaantaas waa inaad iska ilaalisaa socodka iyo xarakaadka badan haddaad marna xaggaa warato marna xaggaa warato qofkii uu kugu khalkhalaya taagnow markaa haddii marka qaar kugu yar qasabto inaad yar socoto 2 tallaabo hal tallaabo qaad dabeedna haddana halkaaga kusoo noqo meel ha ku qalalanaysaa u taagno iska ilaali inaad meel ku jiqilaysato adigoo saasaa tiraahdo waan idin khudbadaynaya waa in hataa khudbadaadii hadalkaagu mid waxa weeye si toos ah aad u taagan tahay qodobka ku sii xigay ee toddobaad waxaabay hadhay markaa 2 qodob kaliya gacmahaaga fur dadka qaar baad arkaysaa markay hadlaysaa ay dhahdaan waa sida waxaad moodaa in gacmaha lagaga xidhay katiinad saa isagoo abu hadlaya maanta hore بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaynu ka hadli doonaa mawduuca salaano kale doorashooyinka soo socda ee golaha deegaanka hadeer hadalo gacmaha maxaa haysta gacmahan waa inay hadalkaaga ay ka qayb qaataan marka ma walba ku dadaal in gacmahaaga ay shaqeeyaan xataa hadalkii way kaa soo saarayaan dadkii waxa way kugu caajismayaan hadalkaaga way qurxinayaan imka haddana wax sala sheegaysaa sanadaniya haddana wax tirinaayo dabeedna hadalkaaga waa in gacmahaaga ay shaqeeyaan gacmuhu hadalka macaan bay u sameeyaan adiga laftaadu waxay ku sameynayaan waad ku nasanaysaa waad ku daalaysaa haddii walagaa hadal aad samaysay oo aad saasuun aad u taagnay waxa weeye arrintaa iyadahay waa qalad weyn waa inaad iska ilaalisaa waxa muhiima iyaduna waxa weeye in wejigaagu waxa weeye uu furfurnaado qodobka sideedaadna waa qodobka waxa qodobkaasi uu sheegaya wejigaaga nala wadaag wejigaagu uu ka qayb qaadanaya hadalka imika waan kula hadlaya waan dhoola cadaynaya hadal baan kuu sheegay murugale indhahan isku qabta dabeedna indhaha haddana mar kor qaaday mar labada baad baan kala fogeynaya marka wax la yaabanayo kale mar basi wejigaagan dadku way akhrisanaya haddii laakiin wejigaagu dhagaxo kale u noqdo arrinkaa la iska ilaaliyo arrinkaasi ma fiicnay arrinkaa lagu dadaalo arrinkaasi wax wanaagsanay
qofkani ma robot baa la odhanaya qofkani ma aalad baa taromiyar bilaadan ahayn marka wejigaaguna ha ahaato mid furfuran sideedii qodob maraan ku dulmaro hadalkaagu ha ku diyaarsanaado habkan u diyaarsanaanaya waan kusoo sheegay haddii hadalkaagu yahay mar mid walba diyaarsan waad la soo wadaagi doontaa iska ilaali waxa weeye inaad garan weydo cidda aad la hadlayso yaad la hadlaysaa ogow waayo cid walood la hadlaysaa saameyn bay hadalkaaga ku yeelanaya qodobta kusii xigta hadalkaaga waxa u qaybi hordhac ugu horeeya nuxur dhexe iyo naqtiinka u dambeeya mid walbana waxay tahay inaad samayso waan kusoo sheegay waxaad ku dadaashaa in waxa weeye hadalkaagu isku dheeli tirnaado xagga toonka farxadda iyo qosolka iyo dhowla cadaynta isku day speedkaagu inuu dhexdhexaad waa mar kor ahaado marna hoos ahaado sinayaan lagaaga baran lowness kor u qaadista hadalkuna waa inuu hadaa meel dhexdhexaad u qaada hadalkaaga hakadgeli oyaan waxaan sidii qasabad socoto un rartaa haysa yar istaaji may hadalkaaga ku dadaal inaad mar walba aad taagnaatid markaad hadlaysid fadhiga waa laga wanaagsan yahay markaad hadlaysid gacmaha ha furnaadaan ha shaqeeyaan ugu dambayna wejigaaga dadka la wadaag farxadda markaad faraxsan tahay murugada markaad murugaysan tahay markaad yaaban tahay iyo waxyaalaha hadda kale la midka ah waayo wejigaaga wuxuu ka qayb qaadanaya ama kuu ka qayb yahay hadalkaaga ayuu ka qayb yahay halkaa waxaan kaaga warramay 8 qodob oo furayaal ah oo wax badan kaa saacidaya hadalkaaga waxaan kaaga warramay ma muhiim baa xirfadan fagaara ka hadalku sidoo kale waxaan kaaga warramay xirfadan iyay muhiim u tahay waxaan kuu sheegay ugu dambayn fagaara ka hadalku wuxuu yahay iyo inaanu ahayn hadal iska caadiya farxad weyn bay tahay in aad ka soo qayb gashay muuqaalkan isla sidoo kale haddaad gadaal ka daawanaysidna aad tahay qof waxa weeye videogan dhammaystay halkaa waxaan kugu soo gudbiyey 10 qodob oo muhiim ah oo maanta laga bilaabo wax ka bedeli doona hadalkaaga haddii uu jiro qodob aad ka heshay oo qodobada kale ka duwan commentka hadda waad noo soo qori doontaa waad ii soo sheegi doontaa isla sidoo kale waxaad ii soo sheegi doontaa jecelahay inaad ila wadaagto haddii uu jiro mawaadiic kale oo xiiso leh oo liveska dambe aan kusoo galo iyada lafteeda commentskaad soo dhex dhigi doonta waad soo sheegi doontaa arrin isaguna muhiim ah oo jecelahay oo codsiya la wadaag asxaabtaada si dad badan ay u arkaan waayo waqtigan hadda aynu joogno waxaa caan noqday waxyaalaha maalayacniga qofka noloshiisa aan waxba u tarayn inay si degdeg u faafaan aynu isku dayno in waxyaalaha wanaagsan aynu faafino aad iyo aad bay farxad igu ahayd isla sidoo kale aad iyo aad bay tijaabo cusub oo xiise la igu ahayd inuu noqdo videogii ugu horreeyay ee live-ka ah waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu waxaan samayn doonaa insha allahu tacaala intaana ka bixin challenges baan samaynay waxaa loo yaqaana challenge-ku wuxuu noqonayaa sida tan ayaa noqonaya dhammaan casharadii ama qodobadii ugu muhiimsanaa kusoo sheegay oo dhan ayaa qof waliba wuxuu ay tahay inuu isku dayo inuu dabaqo marka mawduuc alaale mawduucaad jeceshay dooro soo diyaarso adoo taagan soo hadal deesteedii qodob ayaad soo fulin doontaa dabeedna waad ila soo wadaagi doontaa lambarka whatsappka ayaan idiin sheegi doonaa qofku markuu ila soo wadaago insha allah waxaan eegi doonaa qolada ugu wanaagsan amaba ka ugu sarreeya ugu wanaagsan ayaan insha allahu tacaala soo bandhigi doonaa si qof waliba arrintaasi tijaabo u noqoto wixii aan u saxayana aan u saxo wixii ka qaldanna aan hadalka iska hagaaji isla sidoo kale top 3-ga saddexda qof ugu horreeyana aan soo dhigo facebookgayga haddii ilaahay idhaahdo arrintaasna waa ballan xaggayga aad iyo aad bay farxaad igu tahay mar labaad iyo mar saddexaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh u hadal sidii hogaamiye